wadriyootaye runtu waa maxay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. داوديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا البرنامج كني وادري وتايم حي كلها هاي إلهي سبحانه وتعالى خير بالي الرجينية وحين مريني حلقة دي عاو حين كبلا بينا أدي قفكو كل رياضة بستان أمر روضات وقف كل رياضة روضات وحي وماشي جرين كأهي عقار كأهي قلت بدنه شنبره دحر العربية يعني وحي لمدا وحلالي وحي الرياض كاكوصابسن أما بساتين تا يبيرها كوصابسن لغو الرياضة وحوي بشارة خيرة وبشارة يعني برارة الدورية آخرة بقى لكن وحا حن qofka bini aadamka inuu intuu taa ka gudbo oo meel ka fool xun oo ka hooseysa uu gudbo bimaana meel cagaara oo qurux badan oo shimbirihii jaqjaqda hayaan ayuu qofku joogay hadduu meel ka hooseyso oo dee abaara ama wixii lamid ah uu qofku tago taasi waxay cadaynaysaa qofkaasi in iimaankiisii uu daciifay taasi waxay cadaynaysaa qofka in khasaara yani u sugan tahay inuu markaa iska ilaaliyo ayaa waajib ku ah qofka bini aadamka ee ku riyooda bilaha xashka qof riyooda riyadaas ay noqoto bilaha xashka dhexdeedii uu riyooday uu arko qofkaasi bilihii xashka isagoo roodooyinka dhex cararaya taasi waxay cadaynaysaa qofkaasi inuu xaji doono haddii la yidhaah roodada shariifada ah inuu qofkaasi iyo qabrigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo roodada shariifa inuu qofku ziyaaran doono fi lmadiinati almunawara haddii la yidhaah faama aladiina aamanuu وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أي رب سبحانه وتعالى إنه شيء مكان رياضك أمر بساتين تا قرقروح بدل له ورياض هذا ولا أحسن الرياض كوفي على الغري وذويان. طيب وحين نقول بين إن شاء الله تعالى رياض ينوجو حكته أو قصاب صن ريح ذا أما ضبيشة لما نوع ويان ضبيش مكان فسرات ديدو أما والرحمة بيوضع أما عذاب أي وضع kolba waxay ku xiran tahay qofku sidoo uu riyoodo iyo sidoo arinta uu arko hadii marka dabayshaasi ay noqoto dabayl soo dhacday dadkuna ay dad saalixiin yihiin oo dad saalixiin ay ku dhacday taasi waxay cadeynaysaa dabayshaasi inay raxmad ay tahay hadii ay dabayshaasi ku soo dhacdo dad faasiqiina oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanayn oo xarigiisa aan haysanin taasi waxa weeyaan intiqaam ilaahay subhanahu wa ta'ala ka intiqaamayo iyo jasaa iyo abaalmarin xun oo la abaalmarinayo iyo cadaab adag ay taasina calaamad u tahay hadii marka riyadaasi ay noqoto ama dabayshaasi ay noqoto mid soo dhacday iyadoo dagaal lagu jiro waxay bushaara u tahay dadka muuminiinta ah in ilaahay subhanahu wa ta'ala cirka gargaar iyo nusrad dadka alla ka cabsaday oo ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay rabbi wuxuu yiri ayuha alladina aamanu udhkuru ni'matallahi alaykum dadka iimaanka laga helayo xasuusta oo xusa nimcada ilaahay subhanahu wa ta'ala korkiina uu dhigay idjaatkum junud markii yani askar iyo junud iyo ciidan ay yimaadeen فارسلنا عليهم أن أصدرني ريحا أن ضبيل أصدرني وجنودا إي أسكر إي جنود أيضا أركين أي إلهي سبحانه وتعالى يلي كذلك إلهي سبحانه وتعالى وفي شيء فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات أي ربي سبحانه وتعالى ويلي وعكل إلهي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا كل بوين إصلا قرنين أنا وحفظا أن فسراد يضها أين نقلين أين دول مرنؤون طيب تاوحنا وحي تقف بين هذا كدي وكل رياضة رئة أما صنبب بدل قف بين هذا يكون نفسه ولا بدل صنبب وليه هذا تقف كل رياضة تاسي وحي صنبب بدل وحلا قف السراء وحويان قريجا لا بدل قف يسقبا أيسكو قبان أما علاقة الزوجية أي لقف السراء haddii marka gurigaasi dabku ka baqtiyo yani cilaaqada qofkaasi uu dhintaa mar walo sababadaasi sabab wanaagsan oo caafimaad qaba oo qurux badan oo laabta ku yaala la arkana taasi waxay sheegaysaa in yani arintaasi arrin wanaagsan bay sheegaysaa calaamad fiican iyo farxad bay sheegaysaa haddii sababada labadooda ama mid kamida ay wax ku dhacaan taasi waxay sheegaysaa yani dhibaato ama mushkilad soo socota rabbi subhanahu wa ta'ala dhamaantiin bay naga badbaadiyeen كاوحي نوحيها ريش أما بالل ريش كاسي وعلامة وياهي أستراد بويان
ونمع إلهي سبحانه وتعالى اكتيسة تمد أركتذا بالشا يوحي لمد حيوانه إليه وكله دليل بوحويه هي أرساق ذا واسعة نرشه ونكسبه دليل هي مركادات بالشا أتكو على الرياضة إلهي سبحانه وتعالى هذا علي رمينا ربي سبحانه وتعالى أدي أدتك أثرياقا إلا ظن أعطهي وحوية وين ذوقاتها قدرة إلهي سبحانه وتعالى يدتك فقراء يا مساكين تا إن تا إن أضوح سيسو تدك مساكين تا أما فقراء وحواجب كوكوة إن أضوح سيسو وضو حقرته وصدقاتك يا الزكاة كمالك أضوح كسيسو يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا أيها ربي سبحانه وتعالى يلي قف قدو الريحان قيدك الريحان كلا يلاحظو أما قيدت كدو حكم إذا مثلا با منتك أو كلا بالغينا شاه لو نعناع أو كلا شاه لو درصدية وحي لما دايسو دولويين ريحانك يدول كيسو وهانا ودقناشو وحسلوني وأرين وناكسن أدي لقيت كلا قويو تاسي وحي شيغيسا قف حبيبة وناكسن وتعشاين ودمانيو أما قف عالم ومد عالم يفتين وها إنو أدوية كتغيو كبحيو أدي مركا ريحانا دايري أما قيت كاسي او دولو وحويان قف وحا دمانيا قف عانا oo saalixa oo wanaagsan oo culama oo taqwada ilaahayna ka muuqato hadii marka geedka rayxaankii uu midna ba qallalo oo uu yaani xumaado taasi waa ibtilo dhici karta oo caarida oo qofka bani aadamka ku dhici karta faaman kaana min muqarrabiin dadka muqarrabiinta haduu kamid yahay farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo yiri taa waxay noogu xigtaa meel la waraabinayo hadduu qofku ku riyoodo ray ama waraabin dhulka la waraabinayo haddii lagu la faqayo la waraabiyo haddii lagu riyoodo waxa weeyaan waraabintaasi waa arrin wanaagsan waa calaamad fiican waa bushaaro wanaagsan oo salaax iyo wanaag xagga diinta iyo xagga adduunka labadaba inuu cadaynaysa ama inuu sheegaysa qofka haddii uu raaxo ku riyoodo inuu murtaax yahay oo habi yahay oo raaxaysanayo raaxadu marka la riyoonayo daal kadib ay dhacdo waxay sheegaysaa cala alghina waxay sheegaysaa bacda alfaqr waxay sheegaysaa qofka bini aadamkii isagoo faqiira in ilaahay subxaanahu wa tacaala marba hadduu raaxa ku riyooday in faqarka ilaahay ghina iyo xoolo fara badan uu ku bedelayo haddii qofku uu riyoonaya uu xanuunsanayo uu raaxa ku riyoodana taasi waxay sheegaysaa in qofkaasi yani ajalkiisii geeridiisii dhimashadiisii ay soo dhawaatay tan kuma horeynu yara sheegnay laakiin haddaan si yara sharaxno qofka haddii uu madaxa ku riyoodo waxay kutubta sheegaysaa waxay taasi calaamad u tahay qofka bini'aadamka inuu madaxnimadaasi in xoolihiisa ayay calaamad u tahay qofka haddii madaxiisu weeye xoolihiisa badan haddii kan xoolihiisa yar waxay calaamad u tahay sharaf iyo ziyaado sharaf zaayid in qofkaasi uu helayo haddii madaxii yaraado qofka arsaaqdiisa yar sharaftiisa hoos u dhacaysa oo yar iyo wixii kadalika lamid ah qofka haddii ku riyoodo inuu yahay qof wax raaca ariga iyo geela iyo looda dadka dirmiga ee raaca haddii ku riyoodo qofka isagoo ari ama geel ama loo ama wax raacaya taasi waxay calaamad u tahay qofka qadrigiisu inuu sareeyo arsaaqadiisu inay badan tahay waxay calaamad u tahay qofkaasi inuu cadaalad iyo wanaag uu ku dhaqan yahay ayay runtii calaamad u tahay qofka haddii uu ku riyoodo qof dumara uu furay inuu rajactu yiri qof baa isagoo hurday inuu ku riyoonaya rajactu inuu مثلا qofku ku dhawaaqo taasi waxay calaamad u tahay qofka xanuunsanaya inuu caafimaadayo ama uu ka soo noqonayo khalad ku jiray khaladkii uu ka soo noqonayo diin wanaagsan iyo madhab fiican iyo shaqo wanaagsan wax wala wanaagsan uu ka dhaqaaqay inuu dib ugu soo laabanayo ayay calaamad kadalika ay arinta taasi ay u tahay qofka hadii uu lug ku riyoodo lugtiisa ku riyoodo lugtu waxay calaamad u tahay muuqaalka ninka ay ku tahay calaamad marka lugtaasi hadii qofkaasi bila ka yahay uu ka balaan socdo qofka tacab iyo dhibaato ayaa ku dhacda qofka ninka ilmaha yarna lugtiisu waa abayaashii weeyaan warijlu sabiyi abawaa qofka dhalinyarada ah yar lugtiisu waxa weeyaan aabihii iyo hooyadii waayo iyaga bada socodkii barayo kaxaynayo oo sii wada oo soo wada qofku haddii uu ku riyoodo rujuucu min asafar safaru ka soo laabtay qofka haddii uu safar ka soo laabtay taasi waxay calaamad u tahay faraj hami kadib faraj
ilaahay subxaana wa tacaala qofkaa u furo waxay calaamad u tahay yani inuu qofkaasi nabadgeliyo dhibaato kadib uu ilaahay nabadgeliyo inta badanna riyada la arko qofku inuu safar ka soo laabtay ama shandadiisii uu situu soo dhigayu soo noqday qofkaas arkay inuu toobad keenay ama ay tahay inuu toobad keeno ayay calaamad runtii ay u tahay qofka midanba waynu soo yaro sheegnay xoogay kasoo yaro tataabanay raxmad ama naxariis ku riyooda raxmaddaas waxaa kale lagu fasiraa hadduu qofku qof daciifa u naxariisto in ilaahi subxana wa tacaala u naxariisanayo marka qofka wax naxariistay haddii aad adigii tahay aad ku riyootay inaad cid u naxariisay ama xayawaan u naxariisanayso ama ilmo yar u naxariisanayso ama qof u naxariisanayso waxaad ogaataa inaad tahay qof wanaagsan oo muxsina oo wado fiican uu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay inaad haysatid ayaad ku bushaaraysanaysaa ama aad ogaanaysaa waxaa inoogu xiga gariirka ama racshada waxa weya ishoo kale oo birbir tiraahda imka annaga leerarka lanagu shida aawadeed baad waxaad arkaysaa dadka inta badan ama muraayadaanu ka xidhanaa ama aad arkaysidba qofka in indhihiisii ay naaqnaaqusmayaan ama mar labadaba way naaqusmaan ama dadka way naaqusmaan ama mid taasi waxa weeyaan sababteeda maalan balayrkan iyo dabkan lanagu shiday xooga weyn leh marka birbidhaa yar ishu ay tiraahdaa racshad baa loo yaqaanaa gariir nooc min algariir gariirkaasi waa hami iyo cusri iyo hami qofka bini aadamka ku dhaca haddii uu ku riyoodo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay naga badbaadiye qofka haddii uu ku riyoodo wuxuu fuulayo sidaan horeba usoo sheegnay waa cizi iyo sharaf iyo horumar xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ee agtiisa ah ayay horumar arrinta taasi ay u tahay xarfiga waan ka tegayaa waxaan u gudbayaa xarfi zaada ayaynu gudbaynaa zaada waxaa inoogu xiga sahayda ama zaadka zaad waxaa imika soo baxay wadankii oo kale maalan shabakadan zaad wax la yidhahda jiro laysugu shushubo hawada kulli dadka iga daawanaya wadankii waxa weeyaan way garanayaan inteena kan ma isticmaalno laakiin zaadka way dad baa isticmaala oo xitaa sadaqada zaadka nambarka ku dira iyo wixii lamida waxaa la lacagtu hawaday meeraysanaysaa qof baa qof zaadkii ugu shubaya halkii markaa qofkii ka iibsanayso telefoonka zaadkun baad ugu shubaysaa baa lacagta shadhood baa lainoo fasirayay lainoo sharxiyey meelo badan baa wadankii runtii dadka yani ay horumarkoodu meelahanba uu kaga badan yahay zaadka markaa waa sahayba carabeedka markaad zaad maqasho waa sahay weeyaan sahaydu riyada sahayda oo dhan waxay culimadu yidhahdeen waa riyo wanaagsan oo aad iyo aad u fiican waa bushaaro waxay kugu bushaaraynaysaa bay yidhahdeen zaadku safar yani sahay qofka sahay xidhxidhay oo diyaarsaday cunto iyo cabitaan iyo wax diyaarsaday oo xidhxidhay waa sahay waxay calaamad u tahay baa la yidhi safar aad sharaf iyo wanaag iyo khayr iyo diin wanaagsan aad ka soo faa'iidaysanaysid iyo ciribtaada dambeba ah dadka fuqaraada markaa waxay u tahay sharaf iyo cizi iyo wanaag dadka aqniyaada ana ee xoolaha haysta ee milyoneerada ah waxay u tahay calaamad waxay u tahay raaligelin xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo waxay caddaynaysaa qofkaasi inuu min almunfiqiin aladqiya dadka wax bixiya ilahay dartii u bixiya ayay ugu bishaaranaysaa inuu qofkaasi ka mid yahay taa waxay inoogu xiga insha allahu tacaala waxay inoogu xiga zabiibta waa garanaysaan canabka laga sameeya waatan aynu iminka oo kale waxa ay aada caan ugu tahay in beriiska xagga sare laga qurxiyo zabiibta asalkeedu cinabka buu yahay waxaanay calaamad u tahay arsaaq fara badan oo kaydan waxay calaamad u tahay dhaxalaad qofkaasi arkay uu dhaxli doono dhaxalkaasi wuxuu rahman yahay haddaad sabiib aragtid waxaad dhici karaysa inaad wax dhaxli doonto waxaasaad dhaxlaysaana wuxuu rahman yahay dhimashada qofka dhaxalka ka tegaya marka zabiibtu si caama shakalkay doonto ha yeelato intay doonto ha leekaato kalarkay doonto ha yeelato waa caafimaad ayay badanka u tahay barako ayay awlaadda u tahay arsaaqad ayay xoolaha u tahay taa waxaa inoogu xiga azubdadu waa batarka baalkan aynu marsano rootida waxaa la yidhahda zubdada la yidhaahdo zubdadaasi waa haniimo iyo hadiyad ilaahay subxana wa tacala kiisa laga helo uu qofku bilaa mashaqiya bilaa daal uu ku helo waayo waa wax fudud oo markiiba saa loo marin karayo wax marka waxay caddaynaysaa in qofku si fududu xoolo u helayo qofka marka uu zubdada ama batarka ama kariimka iyo malab isku cuno taas waxay u bishaaro u tahay qofkaasi inuu najaxayo najaax bay calaamad u tahay waxay calaamad u tahay qofku wixii uu rajaynayay ama uu doonayay inuu si fudud uu u heli doono
qofka sameeya zubdiga ama ay shaqadiisa tahay caanaha ka sameeya qofkaasina waxa weeye waxay calaamad u tahay inuu macruuf wanaagsan samaynayo ganacsi wanaagsanna inuu ku jiro ayay calaamad u tahay zubdadaasi marna way adag tahay marna way milantaa marka ay milantay مثلا bade biyo oo kale ay noqoto taasi waxay cadaynaysaa waa xoolihii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baraka fara badan uu geliyey xoolihii oo ilaahay baraka fara badan uu geliyey taa waxay noogu xigta zujaaj ama qaruuradaha daaqad qaruurada ama maxay ahayd koob qaruurada adu warqa waxa la wixii qaruurada oo kale taasi waxa lagu fasiraa qaruuradu waxa weeyaan almar'atu walwalad xaaska iyo ilmaha ayaa lagu fasiraa marka ay labadaasi ay qurux badan yihiin ay caafimaad qabaan ay muraayadaas markay qurux badan tahay dhalaalaysa qurux badan tahay taasi waxa weeyaan xaaska iyo waladku khayr iyo caafimaad bay ku sugan yihiin jabitaanka ay qaruuradaasi jabaysaa waa hami degdega laakiin si degdega buu hamiga iyo qamigaasi si degdega ayuu u zuulayaa suritaanka qaruurada been la suray waa amni iyo amaan waa xoolo waa magacu qofku heli doono laakiin haddii qaruuradaasi sawir ka dhex muuqdo مثلا waxaa dhici karta mar looxadaha guryaha lagu qurxiyo hadday sawir leedahay taasi waa quruur iyo fitno ay tahay qofka bini aadamkii inuu ka fogaado uu ka cararo inta uu ka fogaan karayo taa waxay noogu xigtaa waxa la beerayo ama beeraha la beerayo qofka bini aadamka beertiisu waxa weeyaa wuxuu ku beeraa qofka dumarka xaaskiisa raximkeeda aragtida markaa beeraha noocaas la arkaya waxay calaamad u tahay bishaarad in ilaahay ilma siinayo qofka awlaada ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakaynayo camalkiisa khayrigaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu fudaydinayo zarciga ama beeraha dhaadheerina waa caafimaad iyo jaah iyo cimri dharar weeyaan si guud ahaaneed nooc beertu tay doonto ha noqoto khudraddu tay doonto ha noqoto waa calaamad tayiba oo wanaagsan laakiin waxay xun tahay haddii ama yellow tahay aanay green ahayn cagaar haddii aanay ahayn ama iyadoo gubanaysa aad ku riyootid ama iyadoo laga hijrooday oo laga qaxay ama laga guuray ama abaara ay tahay markaasaanay fiicnayn ilahay laga badbaadiyo taa waxay noogu xiga zamzam biyaha zamzamka qofka haddii uu ku riyoodo nabigu waa ku yidhi maa zamzam lima shuriba lah waxa laali waxaad u niyeysatid biyaha zamzam aad u cabtid ilaahay subxana wataala caafimaad buu kuu siinaya iyo waxaad jeceshay buu kuu siinaya marka cabitaanka zamzam waa shifo xanuunka ilaahay kaa shafaynayo waxa weeyaan calaamad bay u tahay inaad xajka tegi doonto dhowaan ama aad cimrada tegi doonto ood ka cabi doonto biyaha zamzam aad kasoo dhargi doonto كذلك waxay calaamad u tahay marba dad samsan ku riyootay in xaaladaad xaalad wanaagsan tahay oo qof saalixa oo wanaagsan aad tahay oo taqwada ilaahay inaanay kugu yarayn ay calaamad u tahay qofku haddii uu dhaldhalaal iyo wax la qurxiyey dhaldhalaal oo isha yani مثلا ba inda sarcaado kala ku riyooto wax la lalaaliyo ama la qurxiyey oo zukhrufada waxay taasi calaamad u tahay zukhrufada iyo zinada dhaldhalaalku adduunyada weeyaan iyo xaqiiqada arinteedu inaanay khayr lahayn marka waxay taasi fasaad u tahay dhalaalkaasi qofka ahalkiisu inay fasahaadeen ama isagu fasahaaday oo dariiqii saxa ah ka weecday oo adduunyada iyo dhalaalkeedii daba carayo daba socdo dhalaalka magaalada ama wadanka ama tuulada aad joogtid ama meesha degan tahay dhalaal far badan hadaad ku riyootay wax weeyaan uu ilaahay waa halaagaya oo halaag baa u soo dhow baa lagu fasiraa qofka dumarka dhalaalkeeda hadaad ku riyootidna waxaa fuqri uu yahay qof allaali qofkii arka hadaad qof dumar oo qurux badan oo isdhalaalisay oo wax walba ismarmarisay oo si aad isu dhalaalisay aad isu qurxisay haddii aad ku riyooto waxa weeyaan faqarnimo ayaad qofkaaga ku riyooday ee arkay ayaa lagu fasiraa fuqri ayaa lagu fasiraa Allah inaga badbaadiyo taa waxay noogu xiga insha Allah taala tan ku dhameystiri doona xalqadeena barakaysan نوع مجوهرات كما مثلا با يعني وحيالها قالقة هي دمركو حدان isku qurxiyaan oo badda iyo meelaha laga helo oo zumurud la yiraahdo ama diamond oo kaliya wixii la mid ah noocyada mujawharaadkii waxay ku xiran tahay kolba sida loo isticmaalay sida ay u egyihiin hadii marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii iyo sadaqo iyo masaajido iyo meel la dhisayo oo khayr iyo malcaamado iyo beer la qodayo iyo abaaro lagu bixiyana waa bushaaro in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka bini'aadamka ka aqbalay iyo khaatimo wanaagsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa laakiin haddii ay noqoto dhaldhalaal la isku qurxinayo la iska xirxiranayo oo la isugu faanayo arinta taasi waxay calaamad u tahay yani fitno iyo shar Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay naga badbaadiyo intaasan xalqada walaalaha controlku waxay sheegeen xalqadiina saa ku dhamaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala cizu dunya wa cizu al-aakhirah bal Ilaahay idin ka baryaya intaan kulmi doono insha Allah ta'ala kulankeena dambe habeen dambe waxaan idinkaga tagayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa fi amanillah.
وادريوتي runtu waa maxay